saaka waxaan u baxnay kormeerkaas oo aanu wajahaynay dhirta casumadda ku beeran. dhirta casumadda ku beeran waxaa la beeray 2017kii. waxaa lagu beeray ilaa dhowr jid. waxaa lagu beeray wadada madaxtooyada hormara, jidkan roolweynkan oo weyn oo magaalada hormara. waxaa lagu beeray wadadan wada jir. sidoo kale waxaa lagu beeray wadada soo hormara suldaanka iyo wadada waaberi aada. runtii dhirtaas waa ay baxday. waagii la beerayana hay'adda keer baa beedhay. mashruuca waxaa la siiyey nin la yiraahdo Axmed Cabdi Hurre oo waaga ka shaqaynayay. dhirtaani geedkiiba waxaa la qoday mitir, balacana waxaa la qoday 80. dhirtan magaalada waa waraabinaa. waxaan kaloo u sameynaa waan carigedinaa 6 bilood ilaa sanad. dhirtaani waa u jeedaan meeqaamka ay soo madhay. runtii markii aan intaas sameynay sidoo kale waxaan raacinay fayl oo qof kasta oo gurigiisa ku horbeeran yahay dhirtan waxaan u sameynay fayl aan ka buuxinayno qofka muwaadinka ah, geedkana lagu wareejinayo. dhirtii kale oo magaalada ka soo hadhay oo wadooyinka ku yaalayna waxaa mas'uuliyaddeeda qaadnay inaan anagu waraabino, dayactirno, hagaajino. runtii aad bay dhirtu noogu baxday. dhirta aadka u quruxda badan waad garan ka dhaanay dhir aad u fara badan ilaa 900 oo geed baa lagu beeray magaalada. runtii aad bay u baxday. waa ay jiraan kuwa yaryar oo bixi waayey, ayadana caqabadaheeda iyo sababaha u bixi weyday waa sheegaynaa. caqabadaha haysta oo ay dhirtu magaalada waxaa ka mid ah geed beedhay baa waxaa ku dhacaya gaadiidka magaalada. runtii aniga caqabadaha aadka igu waaweyn waxa weeye magaaladii ma leh moogtay meel qofka wajahadiisa meel loogu beero geedka male, laamigii iyo waxa is saaran iyo guriyihii. marka waa caqabad. qofka wuxuu koranaya aniga baakin buu yahay geedka ha iga horbeerin. kii marka booskiisu banaanaa ama markii horeba uusan ugu talagelin hadhoodii goorta gurigiisa dhisto ayuu meeshii ka saaraya. iyadu waa caqabadaha jira. runtii waxaa jira dad badan oo aan dhirta u beernay oo foomkooda aan hayno oo dhirta dayacay. iyagana waxaan rabnaa inaan kula xisaabtanno, sharciga horkeenno, waajibaadka ay leeyihiin aan marsino. taas waa sidaas. dhirta waxaan rabnaa inaanu ka shaqayno magaalada. dhirtu ilaa 2017 ilaa 18 19 dadku dhirta aad uma fahansanay. ilaa iyo 2020 ilaa 2021 ilaa hadda lagu jiro dadku dhirta aad bay u fahmeen, maadaama wadanka abaaro xun iyo jiilaal xun ka jiro oo kaliishu aad u badan tahay. dadku aad bay u daneeyaan dhirta. dad badan oo noogu yimi dhir iyo qaabkii loogu beeri lahaana way jiraan. caqabadaha dadku ay dhirta u beeran waayeen waxaa ka mid ah biraha magaalada oo qaali ah. birtii waa waxa qofka laga siinayaa $70. run ahaantii mana awoodo. iyadana waa caqabadaha taagan bay ka mid tahay. qofku markuu geedkii iyo qonninkii iyo milkeetigii uu soo helo waxaa caqabad weyn ku noqonaysa biraha qaali looga dhigay. degmaduna hadda uma diyaarsana in ay ama horeyba inay birahaas qorsheeda, laakiin hadda kadib waxaan rabnaa inaanu qorshaha biraha ku soo dirno oo aanu golaha deegaanka iyo duquba ay arrinta insha Allah noo ansixiyaan. dadka meheradaha leh oo biraha sameeya waxaan rabnaa inaan iyaga u yeerno, nagala shaqeeyaan sida ay biraha kan ay lacagteeda iyo kharashaadkeeda u yareen lahaayeen si ay dadku ay dhirta magaalada ugu beertaanin. dadku dhirta magaalada aad bay u daneynayaan inay dhireeyaan. marka ayada ruuxeedu waa caqabadaha ka jira ka mid tahay. sidoo kale xoolaha magaalada wuxuu ku hayaa dhib fara badan oo waxa weeye geedkii uu iska soo lolanayaa. hadda dhirtii timirta aan ku beernay jidka Sodonka badankiis isagaa sorooltay, waayo laamigii buu iska marayaa oo dhirtii buu iska soo lolanayaa. marka iyada ruuxeedu waa caqabadaha jira, inkastoo ay hadda ay yar yihiin sidii loo aruuriyay runtii. marka
ayada waxaasoo dhan waa ka duulaynaa. waxaa jira oo kale biyaha dhirtu aad bay ugu yar yihiin oo waxay ka mid tahay caqabadaha jira, waayo booyada dhirta waa aragteen waxay qaadaa 30 fuusto. dhirta magaalada inta ku beerana waa aragteen. waxaa laga yaabaa wadadii, waxaa laga yaabaa street baa waxaa laga yaabaa in aysan 3 biri iyo 4 biri aysan biyo cabin. marka iyada ruuxeeduna waa caqabadaha jiray ka mid tahay. runtii wadada madaxtooyadana awal aad ugu dhib qabnay, hadda waxaa nagala wareegtay madaxtooyada. runtii aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo gartay in uu dhirtaas iyo shaqaalihiisa waliba guuleed oo dhirta aad mas'uuliyad iskaga saaray oo la wareegay, oo xafiiskayga noogu yimi, oo gaadiid u sameeyay waraabiya nagalana wareegay. aad baan u soo dhaweynaynaa. waana wax u baahan in la baahiyo qofkii maaragtay wax qabanaya ama dalka iyo dadkaba mas'uuliyad iska saaraya in la sheego u baahan yahay. marka wadada madaxtooyada hadda waxaa nagala wareegtay madaxtooyada. hadda inta soo hadhay oo magaalada markii aanu dadka dhirtii hore loogu beeray guryahooda ku yaalana aan dib ugu noqono, la xisaabtanno. inta kale soo hadhayna waxaan rabnaa inaanu ka shaqayno, hortiina keenno, waliba sida ugu dhaqsiyaha badan isbuucyadan gudaheeda insha Allah inaanu ka dhigno magaalada magaalo cagaaran oo qurux badan hadii idanka Allah ka dhigo. sidoo kale waxaanu beernay bishii 3 ilaa 6 bilood gudaheed. waxaanu beernay anaga iyo dhalinyarada DYG waxaanu ku beernay xaafadaha qayb kamida sida wadada Shaariqo Hormadha, wadada Al-Nasr, wadada Xaaji Cali Hormadha. ayaga ruuxooda waa ay soo baxeen dhirtii ay beereen. dadkii aan ku wareejinay waa jiraan quwo hadda aan u beernay oo aan ka faa'iideysan. ayagana insha Allah guryahoodaan ugu tagaynaa. kii geedkiisu u soo baxayna waa u mahadcelinaynaa. kii geedkiisa ka shaqaysan waayana birtaan kala baxaynaa. muwaadin kale oo beeranaya baan ilaahay idankiis ku wareejinaynaa. waana hor keenaynaa maaragtay bulshada ciddii uga baahan inay ka faa'iideysato oo rabta nidaamkii dhir loogu beeri lahaa. diyaar baan nahay anagoo shaqaalaha dawladda hoose iyo madaxdeeda ka duulayaanba inay magaalada cagaariyaan.